وينهي ألبي ومهتسيين كوحدة وبري قلمدو سيدا ونكسن أي نوم داليان عاوة هستي دانتدا هاي وحي كلمة أي نوم قادين goordhow waxaan iska gali doonaa khudbadaheena oo kooban maadaama madaxdu ay daalan tahay waqtigana uu aad sidaad la socotaan waa saq dhexe telefishinka qaranka SNTV ayaa si toos ah looga daawanayaa malaayiin fara badan oo Soomaaliya oo dibadaha jooga ayaa caawa xafladan halkan ka socota ee lagu soo dhaweynayo madaxweynaha qaranka Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa markaa dad fara badan ay daawanayaan waxayna ka dhacaysaa sidaad la socotaan iyadoo saq dhexe ay tahay magaalada Cadaado amniga ay gaareen ayaa taas suura gelisay runtii madax fara badan ayaa iga hor muuqata oo aan halkan ku xusi karin maadaama ay aad u badan yihiin waxaan jeclahay markan hal mar aan israacino waqtiga aad u kooban yahay intaanan siinin madaxda khudbadahooda waxaan jeclahay inaan israaciyo oo aan iminka u yeero abwaan suudi oo isagu markaa waxa ku jira halkan ka soo jeedin doona maskaxdiisa caawa بسم الله وحان سلام يا مدحوينها دلك الصومالية محمد عبد الله فرماجو مدحوينها دولة جولات في قلمدو أحمد دعالة جيل لحار مدحوينها كوحقان كدولة جولات في قلمدو محمد حاشي عبدي قدوميها برلمان كقلمدو علي قاع العصر سنة أبشر البغاري سنة عبد القيم الدين تليها إذا مضى قرب لمان مختشرف تماشى كسر غيب الشيء اللي بعنا يوسيده السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل كانوا حاجة زوجين يا قبل الصعدة مدحوينا مع عبد الله فرماج. إن كستو واحد بدل لو فكري. إن كستو واحد بدل لو فكري. قالين إنه فورو. إن كستو عد نوجو فلان. قالوا فيرمي. فرحت يا وحي نوهاي فيستقوني. فبروري سديد دي مالنتي شعبك فايدي oo farmaajo noo soo baxaan faalla dheer qor February 8deedii maalintii shacabku faa'iiday maalinkii fagaaruhu ahaa faylka iyo buuqa oo farmaajo noo soo baxaan faalla dheer qor waxaan idhi Allah nagu farqay nabadii fiicnay dulmigii Allah naga fujiyay kala faquuqi fartuumada Allah nagu galaday fiidkii noo timid Allah farajka qayrka la baxshiyo guusha furaheed fursada Allah laga heliyo ficilka noo muuqda feeraha wixii cudur fadhiyo faraha weynaa cunqadii Allah naga fasaxay igu filka ahay waxba gabaygu yuu ila fakane waxaan ku foolay fariin baan mas'uul ku sida qaymalo fudud furitaanka tagada hubiyo jaala noo fuli farsamee garoomada dhammaan oo wadada fiiri fangaree dhaqaalaha ilaa gobolku fiicnaado annaguna farmaajow inaan cadowga faylgoyno oo mucaarad ceelkaan fadhiyin adiga kuu fooxsan oon fidina taageero culus yaan falkeed qabanne feermee codkaygiiyo tixdan faraha kuu saaray haddii kale faruuryaha ka sheeg ficil la yuu raaci
halkan waxaa kaloo ka soo jeedinayaa gabay ku saabsan martir sharafta martir sharafta noo joogta iyo madaxda ii muuqda mar ha loo istaago shacbigu maalkaa u hur muujiya wanaaggo aqliga meel iskugu geeye maslaxada galmudug iyo u kaca midhaha soomaali meeleeya gobonnimada waa lagu maqsuudaaye ilaashada masiirkiinna iyo waxaa haddeer muuqda ilaashada masiirkiinna iyo waxaa haddeer muuqda mar kastaba macaan dawladnimo geliya maankiinna macaash raadsha dib u socodka waa lagu macluulaay wasalaamu calaykum halkaasa kusoo gabagabaynayay waayahay aad buu u mahadsan yahay abwaan suudi sida wanaagsan ee markaa halkan uga soo jeediyey gabaygiisa kaalintii dumarka maxaa loo waayay aan la dhihin markan waxaan rabaa mar haddii abwaan gabiyey dhinacii baraanburka inaan eego maamo dahabo axmed carab waxaynu leenahay maama soo dhowow adigana baraanburkaaga iyo waxaad ugu kala gashay caawa soo dhaweynta madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo بسم الله الرحمن الرحيم waxaan salaamayaa ummadda meesha fadhida ugu weeyahay madaxweynaha farmaajo madaxweynaha iyaga kale ra'iisul baarlamaanka madaxweyne ku-xigeenkeena kale ummadda meesha fadhido oo dhan وعمل بلو سوايون سكرهاي ساقا شانكو ساين تاسكن واجين محمد ولبو سلام ابتداها ودلو مدح وين مرحبا تناق قدون سلام قدني مناقع معانكو هلا ودنا سلام الله كو يهل فديها محمد بيركيو ودنهاد بلشي ستاي هل بورها ليك قهادا ليك ستاي ودنها ويسبها دي هريالو تاي قرتا كوما عيشو عداوة وكوما جنبي وقول لكو بريه وقول ogolanko baryahe fogogoleno markaad noo dhalatay bahae dhibkeena dhacay madaxda noo qaaday iyo ee mas-uulka wadan maxamed welweliyo welbaharna isku adeeda waa ku wada salaamaysa sida runta wawaajibkii gudanayiyo waanadhan lahayn maxamed waa ku soo dhowahayne dhawaaqa gaar dadkeeniiba dagahaago dalkii ka tegey barbaadoonyuhu la shihiidaan dirhaac walbaba barbaad dacalnaasayahoo derbiyada ku waran barbaadoo faanuqahaa doontan laga lahayn maxamed xaal qaado adigoo xabaal ku jira walle hurdayo hashahaadii rag baa la tegey ku soo haneeday hawdan caleen lahayn hubaal weeyaanoo hadalkaasi waa midro hurdan laga haagi nacaas baan hamuunka bixin hadhiina liidatee geesib halgama hidaha iyo dhaqanka iyo howl wadaagayaga horseed wahaa wadahankeena horumarkee
maamulkii la tegey maxaa musuq maasuqdiyo minadaan u tahay wale hurdayo hashahaadii rag baa la tegey ku soo haleegay hawdan caleen lahayn hubaal weeyaanoo hadalkaasi waa mid ruma hadhiin ama fiicna horaba u kaa waa inaan cudurkana ka bixina calooshayada qabiilka inaan ka gudubna qalkii xumaa anagu dooni mayno waxaan daacad noo ahayn maxamed waa ku doorane dadaalka baan maxamedaan kula haye hooyaado maqal maxamedaan kula hadle hooyaado maqal soomaali waa walaaliyaho weligii rumaad qabiil waa keena qubayo qolnagu leexriday qabiil wana baabashaho baylab haynu nahay banaanka ka toosa haddaad bariyaaltiin maxaa ood weyne maxaa eyuhu degeen maxaa sheerkole habruhu shaha ugu karshaan maxaa farda fiifidleheeye faraha ka reebay maxaa ayraboorka dekeedana baabaa maxaa ayraboorka dekeedana baabaa maxaa furta sheekfidleheeye faraha ka reebay maxaa shiirkole habruhu shaha ugu karshaan maxaa gaashaanigihii gobela ka dhigay maxaa gaashaanigihii gobela ka dhigay maxaa forda shiikfidleheeye faraha ka reebay mas-uul-la'aanta hanaga meeshan hagu licri maxamadaan kula hadlehe hooyaado maqal maxamadaan kula hadlehe hooyaado maqal dalkeennii waa dagahago dalkii ka tegey dalkeennii waa dagahago dalkii ka tegey barbaadoonyuu la shahiidan diraac walbaaba barbaadacanaasayahoo derbiyada ku waran barbaanan la qaybsanoon hadalkood lahayn maxamed xaal qaado adigu xabaal ku jee intaasaan kusoo gaabinayaa farmaajo waxaa weeye waxaa la dhihi jiray maxamed siyaad barre madshunuunu ah ma ahayna wuxuu ahaa nin aaqil ah waxtar ah soomaali isu hoggaansha soomaali haddaan gacanta lagu qaban waxay tahay male nin baa hooyadiis dilaya nin baa dhacaya nin baa gabadhii kufsanaya waxaan rabnaa rag iyo dumar inaan isku mid noqono waxyigelin waa inaan samayno baabuurta loo raaco baadiyaha dadka la soo gacan geliyo maxamed siyaad barre iskaa wax ku dhigi jir maxaan iska adigu u weyne hantina waa qabnaa xoogna waxaan kugu sii dheeri gelinayaa iskaa wax u qabsa in dadku ku shaqeeyo waxaa la rabaa wax walba inaan qaban iskoolada hadda cadcada ku yaala runtan kuu sheegayo waxaa laku dhisnay iskaa wax u qabso maxamed siyaad barre ay ku dhisi dhibna ma lahayn waxaan rabnaa horseed baad noo tahay hogeynaad noo tahay wiilkaygo inaad na hor kacdo oo horumar aad noo samaydo waxaa weeye gabdhaha dib baa loo reebaa gabdhaha waa la waadaa ribaha reebis lagu daraa adaraalaha layga hado wa iska taraaraxa markaan qabsado makaro gabdhaha waa la reebiyo reeba lagu daraa xusulka loogu riixayaha reeda laga reedaa rafaad baan wada qadnaha raalli kuma ahayn inaad naga reebtabahan rajaxow rabnaa
maadeegtaan kuwii la dhalanayo dhibka maadeegtaan assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu maama dahabo way mahadsan tahay baraaburkeeda qiimaha badan waa yahay waxaan u malaynayaa caawa waktiga runtii inuu aadna markaa u dheer yahay madaxduna ay daalan yihiin waa yahay maadaama madaxdu ay daalan yihiin goordhow waxaanu siinaynaa khudbadahooda kama dambaysta ah balse waxaan jeclahay hal mar inaan ka hormariyo marka ugu dambaysana qaybta fanka aan soo xiro fanaanad marti ah ayaa nala joogta nadar maxamed cilmi oo ah fanaanad qaali oo marti ah waxay leedahay hal hees ayaan ugu talagalay oo ah qarannimo mug weyn heestaas ayaan kusoo gabagabaynaynaa qaybtii fanka kadib waxaan gudageli doonaa khudbadihii iyo madaxda inoo hadta galmudug la wareegaya in adinkooda daba socayna waa mahadsantihiin Thank you.
fanaanada aad bay u mahadsan tahay nadar heesaheeda qiimaha badan waqtigoo dhammaaday awgeed waxaan jeclahay markan inaan u yeero wasiirka arrimaha gudaha injineer cabdi maxamed sabriye wasiirku waxaynu leenahay soo dhowow بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله مدحوينها دولة فدرالك الصومالية مدني محمد عبد الله محمد مدحوينها دولة قلمدوب مدني أحمد دعالة وحقين كيسة محمد حاشي dhammaan xubnaha labada gole ee baarlamaanka galmudug dhammaan wasaaradda dowladda federaalka iyo xubnaha labada gole ee baarlamaanka dhammaan qaybaha bulshada oo halkan fadhiya dhalinyarada haweenka odayaasha martida joogta oo dhan السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وقتiga oo loo gartay xoogaa inuu nagu dheeraaday daraaddeed dad badanoo maanta soo safrayna ay jiraan waxaan ka cudur daaranaynaa in laga maarmi waayo in la soo gaabiyo dadkii hadli lahaa dadkii hadallada iyo khudbooyinka ku qornaa raalli ha naga ahaadeen 100% waxaan jeclaan lahaa inaan soo dhoweeyo madaxweynaha galmudug axmed ducaale khudbada madaxweynaha oo keliyana ay nooga dambayso hadalkiisa mudane axmed ducaale soo dhowow السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dadka meesha fadhiya anaa ugu daaweyn baan u malaynaa weli ma daalin ayaa daalay dadka magaalada usaa daalay mudane madaxweyne xildhibaanada wasiirada guddoomiyaha gudoomiye ku-xigeenka aqalka sare gudoomiyaha baarlamaanka galmudug saraakiisha asxaabta odayaasha hooyooyinka dhalinyarada ba'da saxaafadda fanaaniinta qiimaha leh oo aada iyo aada loo maaweyniyeen aada iyo aad baan idin salaamayaa oo idin soo dhaweynaynaa haddaan nahay reer cadaado noo soo dhowaada waa joognaa waana imaanaynaa waana joogi doonaa halkaan noo jeeran ku xafladaynay caawa nooguma horreyso wax cusub ciddii ay ku cusub tahay oo horaan meesha ugu xafladayn jirnay haddana waa sii xafladayn doonaa insha allahu tacaala waqti fiican ayaan heli doonaa waa iskaa saqdhexa aroortiina waa la kallahayaa aada iyo aad baan maaragtay idiin soo dhaweynayaa arrintu ma fududa galmudug madaxweynihii maantay wuxuu soo maray jidkii dheeraa oo raaxada badnaa oo ilaa gaalka ayaa 4 saaca soo soconay berritana 3 saaca uu dhuusanaagu sii socon doonaa insha allah cawdaagu saada buu sii socon doonaa 3 saac oo kale madaxweyne umar horta nala arka waxaan ku nool lahay iyo sidaan ku nool lahay aad baan ugu faraxsanahay inuu nagala qayb galo arko dhibtaan ku nool lahay iyo sida aan ku nool lahay aada iyo aad baan ugu faraxsanahay ilaahay waxaan ka rajaynayaa inuu halkaa ka fikrad qaato dadka iyo dalka halka joogana oo hadda wixii ka dambeeya sidii hore si ka maaragtay firfircoon uu noola shaqayn doono dekadii waxbuu nagala qaban doonaa jidadka waa nala dhisayaa
waxaan rajaynaynaa waxqabad aada iyo aada u fara badan baan madaxweynaha ka rajaynaynaa. madaxweyne reer galmudug waa kuu fadhiyaan. caawa Cadaado oo hooyadii galmuduga ayaan joognaa oo runtii ammaan fara badan mudan. yani labadaas sano iyo markaas aan nabad iyo maaragtay nolol fiican ku joognay ilaa haddeerna sidii maaragtay ugu shidan aan u jeedno. madaxweyne waan kuu soo dhawaynaynaa. noo soo dhawow, nala dardaaran. waxaan kaa sugaynaa maaragtay firfircooni intii hore ka badan. awalba waa noo dadaali jirteene haddana inaad dadaalkii aada sii kordhisaan, inaad dowladda federaalkaa tihiin, inaad gaalada iyo muslimba wixii wax bixiya noo gujaysaan. intaasna hadalkayga ku gunaanadayaa. asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. madaxweyne kusoo dhawow. بسم الله الرحمن الرحيم. waxaan halkan ka salaamayaa madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug mudane xaaf, madaxweyne ku-xigeenkiisa, golihiisa baarlamaanka iyo guddoonkooda, golaha wasiirada ee federaalka oo ila socda, xildhibaanada labada aqal, taliyaha ciidanka, salaadiinta halkan nala joogta, culamaa udiinka, dhalinyarada, dumarka, kooxda howlada waa beri. ma maqlaysaan? kooxda howlada waa beri. galmudug kulligiin waxaan idinku salaamay assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu. bahal saxaafadda inaan ka taga ma rabo. saaxiibkay xaaf wuxuu yidhi anaa meeshaan ugu weyn, anna ma daalin. taas runtiis run maaha. taas anaa markhaati ka ah inuu daalan yahay. shalay maraan wada soconnay yuu baabuur ka degi waaye. abshir bukhaari oo la kaftamaayo wuxuu yidhi madaxweyne ma daalan tahay? wuxuu yidhi tan daal waa dhaaftay. waa loo baahan yahay inaan xoogaa dee aan qosolno oo seriaska xoogaa ka baxno. marka xaaf iyo aniga waa daalanahay, labadana waa daalanahay. laakiin wuxuu rabay dadki inuu hurdada ka kiciyo. waxaan rabaa halkan inaan uga mahad celiyo maamulka galmudug iyo shacabka iyo dadweynaha reer galmudug sida wanaagsan oo diiran oo waaltinimada leh ee nagu soo dhoweeyey, sida wanaagsan oo qurxoon oo dal jeceelka ah, dowlad jeceelka ah iyo madax jeceelka ay nagu soo dhoweeyeen. marna waxaanan iloobeynin tuulo walba aan soo maraynay, magaalo walba aan soo maraynay, waxaa taagnaa caruur iyo ciroole yaa taagnaa oo aan hubo inay ka dhex inay runtii ay lahaayeen meherad iyo shaqo ay lahaayeen, laakiin jeceyl ay noo qabaan inay og yihiin inaan soo soconno ay jidadka noo taagnaayeen saaka laga bilaabo aroorta hore ilaa markii ugu dambaysay waan halkan nimid
oo qorraxdu dhacaysay oo aad noo taagnaydeen aad iyo aad yaan idinkaga mahad celinaynaa sidaas wanaagsan oo waaltinimada leh oo aad noo soo dhaweyseen jidka mar labaad mudane xaaf wuxuu yidhi jidka waa raaxo badnaa wax raaxa ma arkin aniga weliba raaxo ma ahay keliyaha bay xanuunayaba jidkaasi wuxuuna siinayaa 2 cashar 2 deris uuna siinayaa mid wuxuuna siinayaa wixii aan ka dhaxalnay dawlad la'aan iyo burbur iyo qabiil waxaan ka dhaxalnay oo ay tahay indhaha inaan u furno inaan ka gudubno waxyaabihii burburka noo keenay oo ilaa hadda aan la dhisan la'nahay jidadkii oo meeshii loogu talagalay nus saac ama 1 saac aan u soo soconno 4 saac iyo kaliya xanuun waxaan kale oo aan ka barannay inay tahay inaan isxilqaanno oo aan u istaagno inaan dib u dhisanno oo aynan fiirsan maalin walba taako aan dhisanno maalin walba taako waxaa laga yaabaa intay rabta ha qaadato markaan isku tashanno oo aan isku kalsoonaanno oo wixii aan hayno kan ganacsadaha ah kan shaqeeya kan reer miyiga ah dawladda iyo caalamka wax alla wixii ay noogu deeqaan aan jidkaas ku dhisanno waxaan qabaa inaan gaari karno meesha aan doonayno inaan gaarno si uu jidkaas sida dhabtaa uu noogu noqdo jid raaxa loogu socdo runtii waxaan kaloo rabaa inaan hoosta ka xariiqo dadkaasna soo dhaweeyey oo wanaagsanaa inay ka muuqatay ma maqlaysaan inay ka muuqatay adkaysi fara badan oo qaarkood laga yaabo inaysan quraacan inaysan biyo haysan inaysan qadayn laakiin inayna arkaan oo na salaamaan keliya oo weliba qaarkood na dhunkanaya sida ay u jecel yihiin madaxdooda waxayna gelinaysaa yildiilo cusub inaan aada u shaqeenno inaan ka naxno inaan maxaanku idhahdaa aan la seexan oo habeen iyo maalin aan dadkaas u shaqeenno oo naga rajaynaya inaan mustaqbal wanaagsan iyo horumar aan gaarsiino socdaalkaygu runtii wuxuu ahaa socdaal aan ku macneeyey socdaal nabadeed iyo socdaal dib u heshisiin mudane xaaf qayb yuu ka ahaa runtiina waa ognahay oo 2 marxaladood yaan rabaa inaan wax ka idhaahdo 2 arrimood aan rabaa inaan wax ka idhaahdo tan gaalkacyo wax weyn ayuu ka geystay isaga iyo taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo aan u soo diray in uu muddo fadhiyo uu ka shaqeeyo 2 bilood ka hor in dadka waalaha ah oo kale xirnaa muddo dheer dagaalada iyo colaadda muddo dheer haystay oo weli ay ku dambayso dagaalkii sokeeye magaaladaas gaalkacyo in aan ka dhalinno inay noqdaan dad waalaah oo heshiis ah oo magaaladaas ku midooba inay noqdaan runtiina taas waxaan ka gaarnay heshiis laakiin heshiiskaas wuxuu u baahan yahay dhaqangalkiisana waa gaaraynaa insha allah hadduu ilaahay yidhaahdo arrintaas heshiiskaas ma bilaaban hadda heshiiskaas wuxuu bilowday 2011 markaan anugu prime minister ka ahaa 2 dhib baa dhacay mid wuxuu ahaa gaalkacyo ka dhacay maamulka galmudug iyo puntland iyo maamulka galmudug iyo markaas maamulki jiray oo ahaa ximan iyo xeeb oo cadaado ahaa xaruntiisu ay ahayd cadaado arrintaas runtii laguma guulaysan laakiin bilaaw yay ahayd laakiin hadda waa naga go-an tahay inaan dhammaystirno hadduu eebbe yidhaahdo aan ku bixinno juhdi
wakti iyo dhaqaalaba aan ku bixinno si magaaladaas dhibaataysan oo qadiimka ah oo taariikhda leh dadka waalaha oo degan ay u midoobaan ayna wax u wada qabsadaan horumarkoodana uga shaqaystaan laakiin tii galmudug iyo ximan iyo xeeb waa ku guulaysanay maxaa yeelay waxaan usoo dirnay guddigaasoo 3 bilood dhex fadhiyey 2 beelood dhex fadhiyey halkan waxaa nala jooga caalim madaxweynihii hore khayr allah siiyo oo runtii door fiican ka qaatay hadduusan isaga ahaan lahayn iyo guddigaas ay ahaan lahayn waxaan aamsanahay dhibka hadda laga sheegayo gaalkacayo mid 10 jibaar aynu dhici lahaa laakiin hoggaankiisa wanaagsan iyo dadka runtii la shaqeeyey iyo annagoo daba taagneen ilaahay waa nagu guuleeyey 3 bilood yaan dhex fadhinay waxaan ku bixinay dhaqaalo badan waxaan ku bixinay wakti badan alxamdulilah dhibkaasna meeshaasu ku ekaaday dib damba uma soo noqon taas marka aan wax ka baranno inaan arrintan taagan oo dhammaan la inaan wakti siino dadka hadda ku jira oo salaadiinta ah iyo culummadana aan gacan ku siino iyo madaxda hadda ka shaqaynaysa meeshuu ka bilawday waa naqaanaa inaan dhammaystirno insha allah ilaahayna uu gacan nagu siiyo arrinta labaad oo mudan xaaf uu ka shaqeeyey waxaa weeye arrinta ahlu sunna oo jamiica oo aan beri u soconno magaalada dhuusamareeb aan u soconno arrintaas wuxuu ka muujiyey runtii xilkasnimo iyo odaytinimo hoggaameed yuu ka muujiyey weliba taas keliya maahee shaqadiisii nus yuu bixiyey ma aqaan wuxuu samayn doono wixii hadda ka dambeeya laakiin wuxuu ku doorsaday dadkiisi inuu mideeyo gobolkiisi inuu mideeyo ku doorsaday waana waxa qof walba mas-uul laga rabo oo ah inuu taariikh ka tago legacy ka tago oo la yidhaahdo xaaf intuu joogay muxuu sameeyey wax kasta waxaa ka muhiimsan haddaad dhiig baajiso haddaad dad waalaha heshiisiiso haddaad mustaqbal u samayso yaa wax walba ka muhiimsan waa ku mahadsan yahay walaalkan xaaf insha allah taarikhdaa qoraysa cadaado maxay ka geysatay hawshaas degmadan iyo magaaladan cadaado iyada naftigeeda dib u heshiisintaas qayb weyn iyo ka qaadatay dadka degan maxaa yeelay markii hawshaani dhinac u bixi weyday iyadaa tiri annagaa martigelinayna dawladdii intaasna wax dhibaato u dhacay ma laha dawladdu waa ku shaqaysay waana ku mahadsan tihiin meel fiican iya wax soo gaarsiiseen idinkana taarikhda idin qoraysa insha allah hadduu ilaah yidhaahdo magaaladan taarikhda qoraysa iyo dadkeeda insha allah kolleyba wixii hadda ka dambeeya waxay noqonaysaa sidii aan gobolkaan u dhisi lahayn dowlad goboleedkaan u dhisi lahayn wax alla waxay u baahan tahay oo qarankeena aan gacan ku siin lahayn jidkaas ugu horeeyana aan dhisi lahayn si dhaqaalaha iyo dadka isu socodkooda uu u fududeeyo hadduu eeba yidhaahdo idinkana waxaan idinka codsanaynaa inaad waddaan halgankiinnii wanaagsanaa martigelintiinnii sharaf ka badnayd dulqaadkiinnii soomaalinimadiinnii dowlad jeceelkiinnii inaad meeshiina ka waddaan oo aad xaaf oo aad arkaysaan inuu ka tanaasulayo isaga naftigiisa xilkiisii intiisa badnayd aad gacan ku siisaan in dowladda galmudug ay lugaheeda ku istaagto annagana federaalka qayb weyn ayaan ka qaadanaynaa waa mahadsantihiin walaalayaal haddana waxaan kusoo gabagabeynaynaa inaan shahaadooyin bixinno oo abaalmarina shahaado sharafyo oo abaalmarina halkan waxaa ku hayaa shahaado sharaf howlkarnimo markaa lagu mutaystay oo shaqo waxaan u yeerayaa cilmi nuure wahleed soo dhawow
waayahay waa loo qaadi doonaa cilmi shahaado sharafta kale halkan aan ku hayo ee madaxweynaha uu noo guddoonsiin doono waa dahabo axmed carab waa maamadii halkan ka baraankuweysa عادي ما عادي هالمرة جديد ما شاء الله ماما ماما برامج waxay ku darsatay ilbaxnimo hal ogaado maama ilbaxa way waayahay markaana waxaan u yeelayaa maamo kale oo ah maamo xaawo abtidoon keliya maamadaas waxaa lagu xasuustaa camalka soomaaliga ee mashhuurada ka ciyaara waa maamada gacanta ku haysa ee mar walba soo weysa marka hidaha dhaqanka ka qaadaa iyo farshaxanka caanaha siisay waa maanta caanaha siisay iyo daangada ما شاء الله ماما أنا ما تدري يا هادية وايه والله تبارك هادية ما شاء الله ما شاء الله بسم ايوه وايه وما سنتين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.